daawadahaygi soo dhawow challenge waxa uu ku bilaamayaa Alan iyo asxaabtiisa kuwaas oo qiimeynaya YouTuberiska guryahooda. guriga ugu horeeya ay booqanayaan waxa iska leh YouTuberada caanka ah ee lagu magacaabo Kate. ugu horeyntii waxa ay ku garaacayaan albaabka taasi oo iyadu ay ka furayso si fiican u soo dhaweynayso kadib waxa ay kala baraysaa gurigeeda taasi oo ay midmid tusayso. Kate waxa ay garaacaysaa piano kuwaas oo ay ka helin Alan iyo asxaabtiisu waxaana ku oranayaan muusiga mataqaanida iskaga kacmeesha. ugu dambeyntii Kate waxa ay u soo kaxaynaysaa kitchenka taasi oo kala baraysa kitchenkeeda waxaana ay u sameynaysaa cunto taasi oo ay qiimeynayaan. wadahaygi waxaana la tusayaa guriga ay ka helaan inay siinayaan 5 dhibcood amba 5 stars kaasi oo ay u qiimeynayaan waxyaabaha ay gurigaasi dhex yaala. dhanka kale Kate waxa ay kala tusaysaa Alan iyo asxaabtiisa qolal aad u fara badan halkaasi oo ay ka heleen bisada aad u qurqurux badan kuwaas oo ay u sheegayso magacyadeeda. Kate waxa ay tusaysaa Alan iyo asxaabtiisa qolal aad u qurux badan waliba qolkani waxa uu ku sharaxan yahay muraayado. qolkan kalena waa qol kale oo ay tiraahdo isbuuciiba hal mar ayaan seexdaa Kate. ugu dambeyntii Alex ayaa koraya sariirta taasi oo ay la wareeganayso sariirtu. ogow daawadahaygi Alex waa funny. ugu dambeyntii waxa uu arkayaa faras xagan saaran deeta waxa uu Kate weydiinayaa inuu koro laakiinse way ka celinaysaa. kale waxaana la tusayaa Kate taasi oo tusaysa ismuumi buulkeeda isla markiiba Alex ayaa ka oranaya waan ku boodaya laakiin Kate ayaa ka celinaysa. dhanka kale Alex saaxiibkii ayaa isla markiiba ku boodaya taasi oo aanay u ogolaanin Kate ayaa oranaysa waxaan waalan maxaad noogu soo kaxayseen. dhanka kale Kate waxa ay tusaysaa dhinac kale oo ay yaalaan biyo ku jira sanduuq taasi oo tiri waa la dhexgalaa marka aad ka soo baxday jiimka iyaguna waa ay gelayaan taasi oo ay ku oranayso xitaa waa la isku dabooli karaa waxaana ay siinayaan 4 dhibcood. wadahaygi waxa kale nala tusayaa gurigan aadka u quruxda badan kaasi oo leeyahay YouTuberka caanka ah Jordan waana ay ku garaacayaan isla markiina waxa ka furaya Jordan kaasi oo si qurux badan u soo dhaweynaya Alex iyo saaxiibadii waxaanay soo galayaan waxaanu barayaa inantiisa taasi oo ahayd gabadh aad u furfuran. Jordan waxa uu kala barbarayaa gurigiisa. dhanka kale Jordan waxa uu tusayaa dhinac kale oo marka uu TV-ga daawanayo u fadhiisto. ugu dambeyntii Jordan waxa uu ka soo eriyay guriga kuwaas oo aad uga xanaaqay waxaanay siinayaan 1 dhibic.